السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وناكسن داوديال كنا سو دوادا وراركا سلطانكا تيفي qodobada ugu waaweyn ee maantay dawladda Kenya oo soo saartay digniin ka dhan ah ganacsatada lacagta sida al-shabaab. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday xabsiga ku xirnaa ee magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha dalka Qatar oo is-asilay iyo mid kale oo la magacaabay IMF ayaa shaacisay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gudubtay dib u eegista labaad ee wajiga afaraad ee deen cafinta loo sameynayo Soomaaliya. ahlu sunno oo wada qorshe ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya soo xulayso baarlamaanka madax banaan guddiga doorashada. Mareykanka oo war ka soo saaray duqeymo ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe. qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku soo qaadan doona Sultanka TV haatan isagoo faahfaahsan. taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya General Sakiya Hussein ayaa goordhaweed barteeda Twitterka ku shaacisay inuu xabsiga uu ku xirnaa ka baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan. taliyaha ayaa sheegtay in ay ciidamada ammaanka ku raad joogaan Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday halkii ay ku xirtay dawladda Soomaaliya inkastoo ay faahfaahin ka bixin qaabka uu baxsaday. wasiir Janan ayaa la rumaysan yahay in uu muddo toddobaad ah ku xirnaa xarunta dambi baarista CID iyo midda NISA inkastoo aan hadda si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku xirnaa markii uu baxsanayay. taliyaha ayaa dadka shacabka ah ka codsatay in laamaha amniga ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan wasiir Janan ama ay helaan xog ku saabsan. bishii Agoosto sanadkii 2019 ayay ahayd markii wasiir Janan laga qabtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde markaas uu safar u ahaa dalka Itoobiya. wasiir Janan ayaa lagu soo oogay dambiyo badan markii uu dhawaan ka soo muuqday maxkamadda inkastoo aan faahfaahin laga bixin maxkamadiisa. sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Qatar News Agency waxaa is-casilay ra'iisul wasaarihii dalkaasi Sheikh Abdulbin Masir bin Khalif Al-Thani oo is-casiladiisa u gudbiyay amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamda Al-Thani. Sheikh Abdullahi bin Nasir bin Khalif Al-Thani ayaa ka mid ah xubnaha qoyska xukuumadda dalka yari ee Qatar. sidoo kalena amiirka dalkaasi ayaa aqbalay is-casilaadiisa wuxuuna ra'iisul wasaaraha cusub u magacaabay Sheikh Khalid bin Khalif bin Abdullahi Al-Thani. sababta uu xilka uga tagay ra'iisul wasaarihii hore ee Sheikh Abdullahi bin Nasir lama shaacin kaasi oo ah 61 jir ah waxaana xilkaasi loo magacaabay 26 Juun 2013. sidoo kalena wuxuu sanadkii 2005 ilaa 2013 ahaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dalka Qatar. xilka sare ee Qatar waxaa qabta qoyska boqortooyada oo dhaxal u leh iyadoona uu wareegto ku soo magacaabay amiirka. warbixin dheer oo ka soo baxday hay'adda lacagta adduunka marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IMF ayaa waxaa looga hadlay barnaamijka deen cafinta Soomaaliya iyo guulo hor leh oo la gaaray. IMF ayaa shaacisay in dawladda federaalka ay ka gudubtay dib u eegista labaad ee wajigaasi afaraad ee deen cafinta loo sameynayo Soomaaliya. sidoo kalena hay'adda ayaa ku ammaantay xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda sida ay xoogga u saartay kobcinta dhaqaalaha dalka. warkan ka soo baxay hay'adda IMF ayaa sidoo kalena lagu sheegay in guushani ay ku timid kadib dadaallo badan oo ay sameysay dawladda Soomaaliya. dhinaca kale wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa soo dhaweeyay warbixinta IMF isagoona xusay in ay tahay guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliya. wasiir Bayle ayaa carabka ku dhuftay in uu si guul ah ku soo dhamaaday hanaankii SMP4 oo ahayd wajigii afaraad ee shuruucda deen cafinta Soomaaliya. waxaa kaloo intaasi ku daray in tallaabadani ay muujinayso sida ay Soomaaliya uga go'an tahay horumarinta maaliyadda sida looga cafiyo deymaha lagu leeyahay. tani waa tillaabo weyn iyadoona natiijo muujinaysa inagoo
wadajirna in ay naga go'an tahay horumarinta maaliyadda dalka. Soomaaliya hore ayay u dhaqaaqday markii la eego isbedelada iyo dib u hanantay maaliyaddii, ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. dowladda Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafay xoogga saartay barnaamijka deyn cafinta oo hadda maraya meel wanaagsan, waxaana la filayaa in ay Soomaaliya sanadkan bartankiisa loo ogolaado ama loo fududeeyo deynta amaba loo fasaxo maalgashi. xaaladda cakiran ee ka taagan Galmudug ayaa ka sii darayso marba marka ka dambeysa, taasi oo timid kadib isfaham waa soo kala dhex galay doorashada madaxweynaha cusub maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa. wararka laga helaya Dhuusamareeb oo ah halka saldhigga u ah dhismaha Galmudug ayaa sheegay in ahlu sunna wal jameeca ay abaabul xoogan ka wado magaaladaasi. ahlu sunna ayaa lagu soo waramayaa in ay haatan xarunta Inji ay ka wado qorshe ay ku doonaysa in ay ku dhawaaqdo xildhibaano cusub oo ay soo qoratay. sidoo kalena wararka ayaa sheegaya in isla maanta xildhibaanadaasi ay dooran doonaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, kadibna ay gudageli doonaan howlaha kale ee doorashada. sida uu ogaaday Suldaanka TV, xildhibaanada la soo shaacin doona ayaa u badan xubno ku jira baarlamaankii hore ee Galmudug ee ku yimid heshiiska ahlu sunna wal jameeca. arrintani ayaa uga sii darayso xaaladda siyaasadeed ee Galmudug oo hadda saddex dhinac noqotay, iyadoona khilaafka uu sii xoogeysanayo haddii xal dhab ah la heli waayo. dowladda federaalka xaaf oo dhinaca iyo ahlu sunna ayaa ah saddex dhinac isku hirdinaya doorashada Galmudug iyo dhismaha loogu jiro maamul loo dhan yahay. dhinaca kale waxaa jira cabasho ka soo yeertay musharaxiinta madaxweynaha Galmudug, gaar ahaanna afarta ugu saameynta badan, kuwaasi oo qaadacay doorashada isla markaasna sheegay in aysan ka qaybgeli doonin inta la xalinayo cabashadooda. lama oga sida uu xaalku noqon doono, balse guddiga doorashada ee baarlamaanka labaad ee Galmudug oo muddo 24 saac ku daray isdiiwaangelinta musharaxiinta ayaa sheegay in markii ay tahay muddo kordhintii ugu dambeysay isla markaasna la gudageli doono doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo dhacayo 30 bisha 2020. war ka soo baxay taliska Africom ayaa waxaa looga hadlay duqeymo diyaaradeed ee Mareykanka shalay ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Dhexe. war-saxaafadeedkani ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntani lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen shabaab oo ku taala agagaarka degmada Jilib ee gobolkaasi. sidoo kalena Africom ayaa xaqiijisay in weerarkani dhanka cirka ah lagu qaarijiyay xubno ka tirsan shabaab, walow aysan shaacin magacyada iyo waxa uu qaabilsanaa amiirada la xasuuqay. qoraalkani ayaa sidoo kalena lagu sheegay in duqeyntani ay qayb ka ahaayeen ciidamada sida gaarka ah ay u tababaran Soomaaliya. ugu dambeyntii Africom ayaa meesha ka saartay in weerarkani uu khasaare ka soo gaaray dad rayid ah ee ku dhaqan deegaankaasi. Mareykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyay sare u qaaday duqeymaha ka dhanka ah dagaalyahanada shabaab oo uu ka fuliyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. halkani waa Suldaanka TV. dowladda Kenya ayaa soo saartay digniino culus oo ka dhan ah dadka ay sheegtay in ay lacagta siiyaan shabaab, taasoo fududeynaysa in ay weeraro ka geystaan gudaha dalkeeda. Feren Matiang'i oo ah wasiirka amniga gudaha Kenya ayaa xusay in dowladda Kenya ay isha si gaar ah ugu haysa dadka uu sheegay in ay dhaqaale siiyaan kooxda argagixisada ah shabaab ee ka dagaalamo Soomaaliya iyo Kenya. wasiirka ayaa sheegay in dowladda Kenya ay si adag ula xisaabtami doonto dadkaasi, isla markaasna ay jiraan liis dad dhaqaale siiya shabaab oo ay ku raad joogaan. sidoo kalena wasiirka ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay si gaar ah baltimaameed uga dhiga doonaan ganacsatada uu sheegay inay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya soo mariyaan ganacsi kontarabaan ah kadib hadal uu ka jeediyay shir looga hadlayay amniga gobolka Soomaaliya. wasiirka ayaa kooxaha sida sharci darrada ah uga dhoofiyo uga goodiyay in ay ku qaban doonaan gacan bir ah, isla markaasna ay wadaan baaritaan ay wax badan ku ogaadeen.
wuxuu sheegay in ay hadda xooga saari doonaan sidii ula dagaalami lahaayeen kooxaha ku sheega in ay maalgeliyaan argagixisada shabaab wasiirka ayaa dadka Soomaaliyeed ka codsaday in ay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliiska looga hortago weerarada sii badanaya ee shabaab ka geysanayaan gobolada Soomaalida hadalka wasiirka ayaa imaanaya kadib markii kooxda shabaab ay sare u qaaday weerarada ay ka fulinayso gudaha Kenya waxaana deegaanada ka tirsan Kenya ka bilowday barakac ay sameynayaan dadweynaha iyagoona ka cabanaya weerarka shabaab